halkani waa la yaabka TV qodobada caawa idinayna waxaa kamid ah musharaxiinta maamulka Jubbaland oo shuruudo adag ku xiray ka qaybgalka doorashada Jubbaland qorshe Cabdi Maxamuud Cumar xabsiga looga fakinayay oo fashilmay guddiga doorashooyinka Jubbaland oo war cusub soo saaray xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa ka digay in dawladda Soomaaliya ay faragelin ku sameyso doorashada la filayo inay ka dhacdo Jubbaland weerar lagu qaaday saldhig booliis oo ku yaala magaalada Beledweyne gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya oo warqad qoraal ku shaaciyay in uu xirmay kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka dalka dibaddana waxaa ka mid noqon doona madaxweyne Donald Trump oo maxkamad la tiigsanaya maamulka California intii aad daawatay waxay aayeen qodobadii ugu door karoona warkeena ku soo dhawow warkii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe sar ana ilmaamin inaad gambaleelka furato ku soo dhawow warkii aad maqasho inta ka faahfaahsan musharaxiinta Jubbaland ayaa shuruud adag ku xiray ka qaybgalka doorashada la filayo inay ka dhacdo Jubbaland kadib kulan magaalada Kismaayo ay ku yeesheen musharaxiinta la magac baxay midowga musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland iyo wafdigii ururka IGAD oo halka ku sugnaa ayaa musharaxiinta waxay shuruudo adag ku xireen ka qaybgalka doorashada Jubbaland shuruudahan oo ka kooban 8 qodob ayaa midowga musharaxiinta waxa ay hordhigeen wafdiga ka socday ururka IGAD iyagoona dalbaday in loo gudbiyo UNISOM AU jaamacadda Carabta iyo dawladaha daneynaya Soomaaliya in xildhibaanada ay soo xulaan odayaasha saxda ah ee Jubbaland 2 in hal qof loo soo xulo kursiga xildhibaan 3 in doorashada madaxweyne ee Jubbaland ay noqoto mid baarlamaani ah 4 in doorashada ay ka dhacdo goob ka madax banaan xarumaha maamulka Jubbaland sida xarunta qaramada midoobay 5 in ammaanka goobta doorashada iyo ammaanka musharaxiinta ay sugaan ciidamada AMISOM 6 in doorashada Jubbaland ay goobjoog ka noqdaan xubno ka socda dawladda federaalka 7 in goobjoogayaal caalami ah leelo si xubno ka socda beesha caalamka 8 in warbaahinta gudaha iyo tan dibadda ay goobjoog ka ahaadaan doorashada lama oga in madaxda Jubbaland ee haatan waqtigooda dhamaaday ay ogolaan doonaan shuruudaha ay soo bandhigeen xubnaha midowga musharaxiinta Jubbaland iyada oo doorashada Jubbaland ay xilligaani tahay mid ka duwan doorashooyinkii horay uga dhacay deegaanada maamulka Jubbaland warkaabeen ayaad wali daawanaysaa xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa dawladda Soomaaliya kaga digay in ay faragelin ku sameyso doorashada la filayo inay ka dhacdo maamulka Jubbaland xisbiga wadajir himilo qaran xisbiga nabadda badbaado qaran ayaa war saxaafadeed si wadajir ah u soo saaray waxa ayna kaga hadlayeen doorashooyinka Jubbaland xisbiyada ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen dawladda federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen inay faragelin qaawan ay ku hayso doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan deegaanada maamulka Jubbaland iyadoo dawladda ugu baaqeen in sugitaanka amniga ay ugu dambeeyaan maamulka Jubbaland sidoo kale waxa ay sheegeen inay uga digayaan dawladaha dariska qaarkood in ay farageliyaan arrimaha doorashooyinka Jubbaland oo soo ifbaxayaan dhaqdhaqaaqyo cusub oo shaki ku abuuri kara sidii ka dhacday magaalada Baydhabo oo aan ka mid ahayn waajibaadkooda waa mar xisbiyada wadajir himilo qaran iyo badbaado ayaa ka mid ah xisbiyada la filayo in ay u tartamaan doorashada madaxtinimo oo la sugayo inay dalka ka qabsanto sanadka 2021 warkaabeen ayaad wali daawanaysaa guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa war cusub soo saaray guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Jubbaland ayaa sheegay inay soo gabagaboobeen waqtigii loogu talagalay in odayaasha dhaqanka ay soo xulaan 3 qof oo laga dhax dooranayo shakhsigii ka mid noqon lahaa baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi Barre oo la hadlay saxaafadda ayaa sharaxay halka ay marayaan shaqooyinka guddiga iyo soo xulista xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya baarlamaanka Jubbaland qorshe Cabdi Maxamuud Cumar xabsiga looga fakinayay ayaa fashilmay Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida ayaa loo heystaa falal kala gedisan oo ka dhacay deegaanka Soomaalida oo ay ka mid yihiin dilal jirdil barakicin goobo ganacsi iyo kaniisada la gubay
dacwado la xiriira. wargeyska The Reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa oo soo xigtay ilo xog ogaal ah ayaa qoray in la qabtay shakhsiyaad damacsanaa in ay Cabdi Maxamuud Cumar xabsiga ka sii daayaan. ragga la qabtay ayaa la sheegay in ay damacsanaayeen in ay fuliyaan 5 bisha Agoosto aynu soo dhaafnay ay ku beegneed maalintii Isniinta ahayd in ay xabsiga ka fakiyaan Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida. guud ahaan warkii habeen aad ka daawanayseen Layaabka TV caawa intaas ayuu nooga dhan yahay. warkan mid laceen ah nabadgelyo haddii aad nagu cusub tahayna nala saaxiib oo subscribe saar channelkan tan iyo kulanti dambe.